abwaan Soomaaliyeed oo muddo ka hor gabiyay ayaa wuxuu yidhi baadida ninbaa kula dayday daalla kaa badina aan doonahayn inaad heshana daayin abidkaayo dadkuna moodi duul wada dhashay oon wuxuu dahsoonayne dalla ma laha aakhiro haddii loo kitaab dayo nuxurka gabaygu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay jiraan dad aad u haysata inay wax kula doonayaan dantaada ka shaqaynayaan wanaagaaga rabaan laakiinse lugta ku goynaya oo ay seefi dhabarka ugu qarsoon tahay taa waxaan uga jeedaa baryahan dambe in la sagaashanadii markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay waxa caado noqotay in ummadda Soomaaliyeed ay markastoo ay dhibi soo kala dhex gasho markastoo carqalad siyaasadeed timaado markastoo ay dagaalamayaan inay cadowga Soomaaliya u tagaan oo ay caasimadaha Ethiopia iyo Kenya waa Addis Ababa iyo Nairobi ay ku shiraan qoryo ka soo qaataan lacag ka soo qaataan iyagoo ku dadaalaya ama ku andacoonaya inay maaragtay Soomaaliya wax u qabanayaan waxaan aaminsanahay fikirkaasi inuu aad u khaldan yahay sababtuna waxa weeye berihii hore sida laga warhayo wadamada daneeya Soomaaliya jaamacadda carabta ururka midowga Afrika iyo qaramada midoobay waxay diidanayeen in wadamada la yiraahdo frontline stateska ama wadamada safka hore ee ku xeeran Soomaaliya ay raad ku yeeshaan ama ay ka taliyaan ama ay ciidamo geeyaan Soomaaliya sababtuna waxa weeye marka hore dhexdhexaad kama aha carqaladda Soomaaliyeed mar labaadkana strategic interest ay labada wadan leeyihiin wuxuu ku saleysan yahay inay Soomaaliya noqoto wadan daciifa wadan kala daadsan wadan burbursan wadan aan military iyo xoog siyaasadeed midna yeelan saadarteed fikirka ah in Nairobi ama Addis Ababa lagu shiro si Soomaaliya loogu taliyo anu fikirka waxaan u arkaa mid khaldan ta kale waxaan leenahay in Farmaajo iyo Xasan Cali Khayrlaawe waxay badii ka iibiyeen waxay dhulkii ka iibiyeen Kenya maxaa markaa Kenyadii lagu eedeynay nimanka loogu tagay anigu ma fahamsani ta kale Soomaaliya dhibaatada ka taagan waxa lagu xalin karaa wada tashi Soomaalinimo waxa lagu xalin karaa heshiis Soomaaliya dhexmara waxa lagu xalin karaa iyadoo muslimnimadii islaamnimadii Soomaalinimadii dhaqankii iyo geed fadhiisigii iyo gogoldhigidii wax lagu wada qabsado marka inkastoo siyaasad ahaan taageersanahay in ummadda Soomaaliyeed isu timaado ay shirto haddana waxaan diidanahay oo aan u arkaa inaanay dan Soomaaliyeed ku jirin in wadan shisheeye shir lagu qabto waxa la leeyahay shir xamar waxa loogu qaban leeyahay waxa weeyaan dawladdii baa dadkii xirxiraysa anu fikirka waxaan u arkaa inuu fikir khaldan yahay waayo dastuurka ku meel gaadhka ee madaxweyne ka dhigay Farmaajo una ogolaaday Farmaajo inuu Xasan Cali Khayre uu ra'iisul wasaare ka dhigo ayaa Soomaalida iyo siyaasiyiinta iyo aniga iyo qof kasta oo ogol inay shir ku qabsadaan magaalada Muqdisho ama wadanka Soomaaliya meel kasta ahaatee sidaa darteed hadduu Farmaajo diido inuu ku dhaqmo dastuurka qaranka isagu markaa madaxweyne wadankii kama ilaa dastuurkii uu jibinay wuxuu ku dhaartay inuu dastuurka federaalka ee ku meel gaadhka ilaaliyo ta kale in haddii aan ummadda Soomaaliyeed aanay dhexdeeda ka tashan oo mar walba la leeyahay Soomaaliya nin shisheeya ha u tagaan dawlad shisheeya ha u tagaan caasimad shisheeya ha tagaan oo ha ku shiraan oo war ha ku qabsadaan shirar ama dib u heshiisiin ama yani olole siyaasadeed oo wax lagaga bedelayo systemka Soomaaliya ka jira dan waxaan u arkaa fikirkaasi inuu aad u qaloocan yahay waayo waxa weeye Soomaali haddaana iyadu heshiin oo qof shisheeye soo dhexgalo oo ninka uu odaygan gabi sheegay baadida kula deedeeyeen doonahay inaad heshana oo ninka uu gacaliyo to la moodayaan waxaan u arkaa inay arrintaasi jaris ku xor tahay assalaamu calaykum